korintuska koowaad cutubka 13 haddaan ku hadlo afafka dadka iyo malaa'igaha laakiinse aanan jacayl lahayn waxaan noqday naxaas dhawaaqaysa ama saxan bira oo sanqaraya oo kale oo haddaan leeyahay adiyadda wax sii sheegidda oo aan garanayo waxyaalaha qarsoon oo dhan iyo aqoonta oo dhan iyo haddaan leeyahay rumaysadka oo dhan oo aan buuraha ku dhaqaajiyo laakiinse aanan jacayl lahayn waxba miihi oo wax kastaan leeyahay haddaan bixiyo oo masaakiinta ku quudiyo iyo haddaan jidhkayo bixiyo in la gubo laakiinse aanan jacayl lahayn waxba ii tari maayo jacaylku waa samir badan yahay waana raxiim jacaylku ninna ma xasdo jacaylku ma faano mana kibro waxaan u ekayn ma falo nafsaddiisana wax uma doondoono mana xanaaqo sharna kuma fikiro xaqdarrada kuma farxo laakiin wuxuu ku farxaa runta wax walba wuu u dulqaataa wax walba wuu rumaystaa wax walba wuu rajeeyaa oo wax walba wuu u adkaystaa jacaylku weligii ma idlaado hadday wax sii sheegidii jirto way baabbi'i doontaa hadday afaf jiraan way dhammaan doonaan hadday aqooni jirto way baabbi'i doontaa waayo waxaynu naqaan waa qabyo oo si qabi ahaana ayaynu wax u sii sheegnaa laakiin markii waxa oo dhamm ay yimaadaan waxa qabyadahi way idlaan doonaan markaan ilmo yar ahaan jiray sidii ilmo oo kale ayaan u hadli jiray sidii ilmo oo kale ayaan wax u garan jiray sidii ilmo oo kale ayaan u fikiri jiray laakiinse haatan waxaa noqday nin weyn oo waxyaalihii carruurnimada waan iska fogeeyey haatan si aan caddaan ahayn ayaynu muraayad wax ugu aragnaa laakiin markaas kafool ayaynu wax u arki doonnaa hadda si qabi ahaana ayaan wax u garanayaa laakiin markaas waxaan u garan doonaa sidii laga gartay haddabase waxa waaraa waa saddexdan rumaysad iyo rajo iyo jacayl laakiin kuwan waxaa ugu wada weyn jacayl